بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan warbixinteennan ku soo qaadanaynaa sooyaalka Afrika taariikhda Afrika gaar ahaan wadanka Uganda waxaa ka soo jirtay boqortooyo boqolaal sano talinaysay haddaan ka soo bilowno boqorkii la oran jiray Mutesa I oo ka talinayay wadankan Uganda 1878 markay taariikhdu ahayd boqorka Mutesa waxaa waqtigaas imaaday wadanka Ingiriiska waxay kala saxiixdeen heshiis geedkan idin muuqdo oo taariikhiga ah ayaa waqtigaas lagu kala saxiixday heshiis albaabkan idin muuqdo waa meesha laga galo xaruntii boqortooyadii waqtigaas Ingiriiska iyo boqor Mutesa waxay kala saxiixdeen markii uu Ingiriiska imaaday in Ingiriisku uu si guud u maamulo dalka Uganda asagana maamul hoosaad uu ka ahaado meesha waqti kooban kadib ismaandhaaf dhacay awgi waxaa dhaxmaray Ingiriiska iyo boqorka dagaal qaatay 2 isbuuc taasoo ugu dambeyn lagu qabtay boqorka markii la qabtay waxaa la geeyay jasiiradda Seychelles asagoo halkaas lagu hayay muddo sanawaad ah ugu dambeyn sanado kadib waxa uu codsaday boqorka in wadankiisa dib loogu celiyo Ingiriisku waxay ka dalbadeen inuu galo Kirishtaanka boqorka markaas ma uusan haysanin wax diina haddana waxay ugu yeereen diin la'aan kaleeto oo Kirishtaanka inuu ku soo biiro waxayna u ballan qaadeen inay ku celin doonaan wadankiisa Kirishtaanki markuu qaatay muddo kooban kadib boqorkii waa u geeriyooday waxa ayna keeneen wadankiisa asagoo meeyda si loogu duubo markii ay intaas dhacday boqor Mutesa halkaas uu ku dambeeyay waxaa loo tababaray xilkii inuu qabto boqornimada wiilkiisii David oo ay ka wadaan Daud maadaama aabihii wadadaas uu maray Ingiriiska ayuu asaga la noqday xulafo waa uu la saaxiibay waqti markuu asagana hayay waxa uu geeriyooday markay taariikhdu ahayd 1932 waxaa qabtay xilkii Mutesa II oo uu dhalay Daud oo loogu magac daray awgiis Mutesa waxa uu dalka Uganda gaarsiiyay xornimo 1962 aasaarta ama raadadka ka muuqdo Mutesa II waxa kamid ah gaarigiisii oo horteena ka muuqdo oo waqtigaas uu wadan jiray Mutesa II waxa asagana afgambiyay boqorkii madaxweynihii Amin Dada oo ahaa nin muslima Amin Dada ayaa dalkii si hogaamiyay muddo waxa kaleeto xarunta aasaarta ka muuqdo ama raadadka ka muuqdo taariikhiga waxa kamid ah qori waqtiga Tanzania iyo Uganda markay isku dhaceen uu siiyay boqorkii ama madaxweynihii Libiya Muammar al-Gaddafi qoriga muuqaalkiisa waa kana noo muuqdo waxa kaleeto kamid ah raadadka ama sooyaalka taariikhda ee aasaartii kani waa Nuruddin oo ka diiwaan gashan wasaaradda dalxiiska dalka Uganda Nuruddin waxa uu nooga sheekeeyay taariikhda godkan waxaa dhistay Israa'iil waxayna u dhistay in uu noqdo xarun lagu kaydiyo hubka laakiin madaxweyne Amin Dada ayaa waxa uu u bedelay xabsi marka lagu xiro dadka dawladda ka soo horjeedo ama dambiyada galo waxaad ku arkaysaa darbiyada godka qolalka dhexdiisa ah gacmo dhiig leh oo darbiga lagu taabtay ama qofka uu cuskaday waxa kaleeto arkaysaa godka meelo koronto lagu dhajin jiray oo maxbuusiinta markii ay isku dayaan inay soo baxaan qolalka ay ku jiraan hortooda waxa lagu shubayaa biyahaas koronto lagu daaraya korontadaas ma awoodaan marka inay soo baxaan qofkii isku dayo inuu soo baxana halkaas ayuu ku dhimanayaa haddii uu isku dayo maxbuusku inuu badbaado ciidamadii oo saaran qaybta sare ee godka ayaa halkaas ka tooganay waxa kaleeto soo marnay beerta boqorka Soomaalida aad ay u taqaano Soomaalida Uganda ku magac dheer beerta boqorka waa beer ay ka baxaan dalagga noocyadiisa kala duwan waa beer lagu maalgeliyo iskuulaad iyo goobo waxbarasho oo fara badan sida uu noo sheegay Nuruddin
حقيقة goobtani waa goob dalxiis, waa goob sooyaal, waa goob taariikh oo mudan waxaa kaletood ku arkaysaa xarunta boqoradii hore ee dalka Uganda beer noocyada dalagyada ay ka baxayaan sida mooska iyo babayga, cambaha iyo noocyada kale ee dalagyada. beertaas waxaa lagu dhisay iskuulo, goobo waxbarasho. beertu waxay ahayd goob boqorka ka baahi tirtay inuusan u baahanin wax ka baxsan dalkiisa. dharkan midabaysan oo dadka Uganda waqtigaas u ahaa hidde iyo dhaqan waxa kaleeto sameyn jiray boqorka hadii uu geeriyoodo oo kaleeto waa lagu duugi jiray, waxa looga dhigi jiray kafan. waxa kaleeto kamid ah sooyaalka taariikhda ee aan ku soo aragnay xaruntaas doon u samaysan sidii doomiye caadiga ah oo la raaci jiray laakiin ka yar ood moodo darkii lagu waraabin jiray xoolaha markaynu joogno dalkeeni oo ay ku sameyn jireen waxyaabaha mukhadaraadka ah oo markaas ayaga ay daneynayaan. waxa kamid ah sooyaalka taariikhdooda oo aan ku aragnay calaamadii ay lahayd boqortooyada oo ka kooban mas aad u weyn iyo shabeel. waxa kaleeto kamid ah sooyaalka taariikhda ee aan ku aragnay xaruntaas wado isku xirto meeshii uu deganaa prime ministerka ee wadanka Uganda iyo xarunta boqortooyada oo dhaxdooda lagu taxay xayawaanada sida maroodiga, libaaxa, shabeelka iyo xayawaano kale oo fara badan oo ay kamid yihiin shimbiraha iyo wixii la mid ah. waxa cajiiba sida uu noo sheegay nin xarunta dadkii joogay kamid ah oo muslimo la yiraahdo Nuurdiin, calaamad kaste oo ku taala meeshaas oo xayawaan waxay ku tusinaysaa qabiil. bimacnaa maroodiga oo kaleeto astaanba wuxuu u yahay qabiil. dhaqan kasta oo qabiilka uu gaar u leeyahay waxa weey asaga inuusan isguursan karin oo qabiilka dhexdiisa aysan isguursan karin, laakiin qabiilka kaleeto wiil kamid ah iyo qabiilkan kale gabar kamid ah isguursan karaan.